سيدنا محمد والمرتيد وجيد باق نبضات maanta taariikhdu tahay 9 bisha afraad 2020 garabka aqoonyahanka dhalinyarada mudulood waxay dirayaan baaq nabadeed oo ku aadan oo ku wajahan dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada hoos taga degmada Cadale loo joojiyo kana shaqeeyaan sidii aysan markaa u soo laaban colaadaha muddada badan soo laabtay ugu dambeyn dhalinyarada waxay u baaqayaan dawladda dhexe maamulka Hirshabeelle in ay qaataan kaalintooda ku aadan joojinta dirirta ku soo laabatay deegaanadan oo aan mar koowaad iyo mar labaad lagu dagaalamin sidoo kale dhalinyaradu waxay maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga gobolka Banaadir ku baaqayaan in ay kaalintooda ka qaataan maadaama aan ognahay in ay soo galeen maxaa la yiraahdaa colaadahaas magaalada Muqdisho sidoo kale dhalinyaradan maanta halkan isugu timid mudulood ah waxay dirayaan tacsi ku aadan cid kasta oo ay saameysay colaadaas muddada badan soo noqotay kulankan waxaan ugu baaqaynay maxaa la yiraahdaa in dadka walaalaha ee deegaanada Cadale inay maxaa la yiraahdaa colaadaha joojiyaan waana sii wadin doonaa waxaan ugu mahadcelinaynaa isku keenistan iyo qabanqaabadan gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad aad ugu mahadsan yahay inuu maanta geed fadhi iyo qabanqaabo u ahaayo kulankan dhalinyarada codsatay inuu kulankeeda iyo qabashadeeda u lahaa aad ugu mahadcelinaynaa waxaan kale ugu baaqaynaa walaalaha wada Cadale in maanta iyadoo dunida ay marayso dunida saddexaad ay marayso marxalado in horumar iyo lagu xisaabtamo in maanta dib loo soo celiyo dagaal qabiilad ama aana qabiilad waxaan ku baaqaynaa dagaal waa ognahay wiilaa ku dhasho wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho waxaan leenahay walaalayaal dad walaalaa tihiin dad isku xiga ehelaa tihiin waxaa fiicnaa lahayd meesha aad wiil ka dilaysaan inaad wiilashiina aad ku gaamisaan dhanka waxbarashada iyo maxaa la yiraahdaa iyo tacliinta waxaan aad ugu xunnahay oo aan aad ugu tiiraanyoonayna tacsidan la wadaagayna falalkii soo galay magaalada Muqdisho way ku dhinteen dad wax garad iyo aqoonyahan ah waxaan leenahay naxariista janna Allah ka waraabiyo insha Allah kulamadaana waa sii wadi doonaa cid kasta oo dhalinyaro ahna oo ama ha noqoto labada dhinac maxaa la yiraahdaa dirirto kala gaartana meeshan way fadhiyaan maanta labada dhinacba oo ku dagaalamayo wiilashiina wax bartay aqoonyahanka ah maanta way isjeceliin way isla joogaan meeshaan isla fadhiyaan baaqana si nabad ay u dirayaan waxayna ka mid yihiin dhalinyarada mudulood ay ka mid yihiin waxaan jeclaan lahayn marka qof kasta oo garawshiye leh inuu intaas garto maxaa la yiraahdaa dagaalkana la joojiyo gudoomiyaha ku mahadsan yahay qabanqaabadan insha Allah dawladda dhexena waxaan leenahay mar kasta maxaa la yiraahdaa hadii waxaan diyaar u nahay xataa inaan dhaqaalaheena iyo dhididkeena aan ku bixino hadii xataa ay noqoto in la dhadhaxayo dadkaas walaalaha waxaan baaqa mar kale ku celinaynaa mar saddexaad ku celinaynaa in dawladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Banaadir ay ka qaataan kaalinta ay ku leeyihiin annagana insha Allah waxaan ka qaadan doonaa kaalinta walaalnimo aan ku leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh